بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسن meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada daawadayaalkeena qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaa la wadaagayaa xogii ugu dambeeyay xalay ceeb baa dhacday magaalada muqdisho xalay ceebtii ka dhacday oo ku hadlay fiqo waraabe haddaad ogsoontihiin baa in maalintii shalay ahaa ama maalintii doraad ahayd baan leeyahay aw la soo istaagay ninka la yiraahdo liibaan shulug magaalada dhuusamareeb shir jaraa'id oo ku qabtay ay ahayd haween weynaha galmudug xalayna shir jaraa'id waxaa qabtay ninka la yiraahdo fiqo waraabe marka ay leeyahay dadkan af Soomaaliga xagee ku barteen goormaysa barteen maxaysa ahaayeen ay la yaabanina waxyaalaha aragay ayaa mar walba in la soo wadaaga waxa ku hadla Sheekh Shariif muxuu ku yiri barintaan qodobada ugu gudagelin waa kane ila daawad ereyadiisii أنا دولتنا مدح دفرنا قفكي قري سوقات وحتى مدحda waa dilaysan qofkii qori soo qaata sharci darra oo dadka inuu ku dhibaateeyo u soo qaata madax lagu dhifraya madaxweynahii hore Shariif waxa uu sheegay Elwaan Shariif madaxweynaha hore Elwaan Shariif inuu madaxweynaha Elwaan Shariif waayahay haddaba soo dhawaada marka qodobadan ugu gudagelaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxyaalaha noocan oo kala ah markaan arko waxay u soo dhacaa dadkaan xagee ka yimaadeen maxay ahaayeen ilaahay baa idinku dhaarshay qofkaas halkaa fadhiya nin adeerkiisu wuxuu rabaa inuu caayo nin adeerkiisu kala wuxuu rabaa mataqaanaa dee inuu yiraahdo waa madaxweyne Sheekh Shariif dadkoo dhan baa wada og ama ha xumaado ama ha samaadee waxa uu soo noqday madaxweynaha Soomaaliya soo noqday mar waa madaxweynihii ku meel gaarka Soomaaliya meesha hadda looga gudbo federaalka la leeyahayna waa madaxweynihii soo gaarsiiyey waayahay xalay muxuu la soo istaagay fiqo waraabe wuxuu la soo istaagay ma aha madaxweyne hore umana aqoonsani maxaad u aqoonsan tahay xildhibaan Shariif ku haya waaya waxaan horta waa waxay ku caanamaalaan oo waxay isla yihiin hala yaabin marka fiqo waraabe waxaan rabaa tusaale inaan baxsho fiqo waraabe hadda la yaabi maayo waxaan kula yaabaynin waa run qof hawiyaha dawladnimo waxba kama yaqaan madaxna in lagu tilmaamo waa khalad qof hawiyaha madaxweyne in la yiraahdo waa khalad waa sax wuxuu markuu madaxweynaha de wuxuu yahay iyo wuxuu gudo iyo wuxuu gala oo yaqaano ba astaanta madaxweynaha lagu magacaabi karaa laakiin ba hadduu bisan aqooninba micnaheeda kala soo baxaynin waxa ay ahayd dib moola oo qaansan karo hadalkan waxaan rabaa inaan tusaale ka baxsho fiqo waraabe ereygan iskama dhihin aqal xumada hadda asaga ku jirto oo qofka riix ah ma aha waa hadal laga keenay oo rabbi ka keenay waayo istaahilkeedba ma leh qof hawiyaha inuu madaxweyne noqdo in lagu magacaabana waa khalad waxay ku habboon tahay in xilalka hoose ama mataqaana xildhibaanka hadda uu sheegayo ama wax ka sii hooseeyaba in lagu magacaabo yidow u leeyihiin heerkaas ba ma gaarsiisanin weeye marka ereygiisu annagu heerka madaxweynaha ma gaarsiisanin in loo kugu magacaabana waa khalad weeye arrinkaas asagu si kastaba ha ka wato ku xumee Sheekh Shariif ha yiraahdo ku laakiin anagu waxaan ka marqaat furaynaa inaysan heerka madaxweynaha aysan istaahilin in ayagu isku marqaat furayaan inay taagan yihiin way fiiri shalay madaxweynuhu ahaa sidii mataqaanaa dalka soo maray shuruucda loo dhisay oo noqday uu ahaa ayaga markuu wax isku marqaat furayaan anagu ma istaahilno madaxweyne haddaan noqono iyo haddaan noqon madaxweyne ma istaahilno warun hala yaabinina madaxweyne ma istaahilaan ma noqon karaan dalkan ma hogaamin karaan waa run ereygaas oo ku hadlay madaxweyne ma noqonayo mana ahayn dal baay iyo dad baay buu iska dhex fariista shisheeya arrinka uu noo qoolay laakiin qof hawiyaha madaxweyne ma istaahilo ma annaga ka keenay madaxweyne ma aha soo ayuu kama iman ereygaas hadda marka waaye marka see marka qof asagii leh war anagu ma istaahilnay hanugu sheeginina seen ku dhici kartaa inaan dhiraano waa madaxweyne ceeb bay nugu tahay fool xumay nugu tahay dadka Soomaaliyeed dalkan madaxweynayaashiisu ilaahina u qoray ummaduna u taqaano waa daarood yaa lagu kamiin yaa lagu kadsoomin in erey been ah lagu yiraahdo qof aan istaahilin
hadda ka bacdi shariif madaxweynihii hore dhihi mayno madaxweynena dhihi mayno xildhibaan shariif baan leenahay xasan garguurta madaxweynihii hore dhihi mayno madaxweynena dhihi mayno xasan shiikh baan leenahay ama xasan garguurta waxaan qofku istaahilin waxaan qofku ahayn waxaan qofku goyn haddii calafku u geeyo meeqaamkii sare ma qaadan kara magaceeda ayagii baaban isku oggolay ayagii baaba kuu tilmaamaya war waxaan aanan leedihiin ma nihin mana goynayn naga daaya ayagii baa dhahaya xageed ugu kilkilaysaa madaxweynaha xasan sheekh madaxweyne shari xageed waxaa ula socotaa afka suubsada ayagii baa kule magaca aanan leedihiin ma goyno mana istaahilno ereyga hadda fiqi waraabe wuxuu caddayn u yahay war anigu magacaa ma gooyo xildhibaan shariiftu ku hayaa ka daayuu leeyahy maba noqon karno leeyahy maba noqon karno madaxweyne ma istaahilno xaggee adinku noogu wadaa moodinina inuu mataqaanaa ilaahay baa ka keenay dadku waxay u qabaan mataqaanaa inuu nacayb u leeyahy laakiin uurkiisu waxaa ka soo hadlaaya inaysan waxaan dadkaanu aysan goynin anna waxaa ku talagalay inaan idinla wadaago war waxa aysan goyn war waxa aysan noqon karin war waxa aysan ahayn ha ku sheeginin war madaxweynaha dhihinina war madaxweyne wixii istaahilaa la yidhaahdaa war ma madaxweynaa qabuuro fakta war ma madaxweynaa suma wallaahi la soo istaagay shalay kii waa erin kii kaloo ku xigay waa erin kana waa erinayna war ma madaxweynaa la soo istaagay inuu shacab barakacsoo burburiyo war ma madaxweynaa la soo istaagay sharci darra ku fadhinaya ilaahay baa idinku dhaashay miyaysa ceeb iyo foolxumo ahayn wuxuu miyaysa isku markhaati furayn xaggeed uga leexinaysaan marka miyaysa isku markhaati furayn madaxweyne ma nihin hana dhihinina ma istaahilno mana noqon karno mana aanaa noqon qash darar waxaan ugu fadhinaya kuraasaan iyo dadnimo xumo haye madaxweyne qabuuro qotay madaxweyne bakti u sajuuday madaxweyne shisheeye u sajuuday madaxweyne shisheeye ka amar qaatay madaxweyne dadkiisii barakacshay madaxweyne dadkiisii kala fuquuqay xagee lagu arkay adduunka caalamka madaxweyne sakii dadkiisa ku wada jiray maaha wasiir gaashaandhig oo hooyo 100 jir ah oo tawr waxaa dhaya heblahay baa ku soo diray hebel aan naqaanaa ina lillahi wa inna ilayhi raajicuun war magacaan baayo madaxweynaha lagu sheegayo war waxaan baay oo baktiye xageegeena war magacaan madaxweynaha xagee ku aasnaa magacaan madaxweynaha hawiye nagala dhaxeeyay jinni wax ku fur oo ayagiiba ku leeyahay war ha igu magacaamin ha igu yeeri iga daa sheekh shariif dheh haddii xilka aad ku magacaabaysid oo aad maamuusaysid xilli baan iska dheh ku dhahaya magacaan baas xagee ku xabaalnaa dowladda federaalka lagu leeyahay xagee ku xabaalnaa waxaan maalin walba ku haya dowladda federaalka madaxweynaha dowlad war waxaan xagee ku xabaalnaa war ii soo qodob god ilaahay baa idinku dhaasha kafantii ii keen oo god ii diyaariya waa xabaalaya horay haddii loo xabaalay soomaali oo loo taxsiyeeyey anna maanta waxaa u taxsiyinayaa madaxweyne been ma idin sheegay madaxweynea u taxsiyinaya waa xabaalaya waa dhigayaa astaantii qaranka baan aasaya waxaan istaahilin maxaan wasiirka gaashaandhigga waa ku daba xijinaya war magaca madaxweynaha waa xabaalna waa dhintay madaxweynuhu waa dhintay saaka madaxweyne magaciisa waa baayo waa hoogo waa baay saaka xasan baa ah oo sheekh shariif baa noqday oo waxaas saaka madaxweyne noqday oo la leeyahay madaxweyneyaal waa caab waa foolxum naga daabi ku leeyihin hana dhihin ma istaahilno ma noqon karno haye waa laga daba wadaa annaba saaka waxaan diyaarinayaa horey haddii rag u aasay una taxsiiyey soomaaliya anna saaka waxaan u taxsiyinayaa madaxweyne xabaashi baan diyaarinayaa haddii ilaahay idmo u soo diyaar garoobo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu